wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Xaaji Saalax oo maanta kulan la qaatay dadka deegaanka ee ka soo jeeda Baargaan iyo Caluula ayaa ugu baaqay in nabadda la dhowro isla markaana ay muhiim tahay in gacanta lagu soo dhigo raggii ka dambeeyay dilkii Allah u naxariistay marxuum ka tirsanaa golaha wakiilada Puntland oo lagu dilay magaalada Baargaan. wasiirka oo hadalka ku bilaabay ayaa waxa uu sheegay inay ahmiyad gaar ah siinayaan ka dowlad ahaan odayaasha iyo dadaalka ay wadaan haddii asaas tahayna loo baahan yahay in la isgarabsado isla markaana hunuda iyo waxyaabaha aan macnaha lahayn ee dadka qaarkood ku wareegayaan waa sidoo hadalka u dhigay meesha laga saaro. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan kula dardaarmayaa mubaasha dhalinyarada waxgaradka nabadoonnada ismada inay arrintaa iyada dejiyaan oo ay dawgii ay lahayd u maraan. waa garanaysaan wax badan baa la isku haystaa. waxaan maqlaayay 19 qof iyo 4 qof oo iyagu amarka bixiyey. waxaan rajaynayaa arrinku inuusan intaasi dhaafin aysan noqon buuhaada iyo been abuurka iyo shakhsiyaadka lagu ataagayo in la iska daayo. أنه وحوية عندي في النكتة mahad yuusuf xaaji oo xigta la ah xildhibaankii la dilay bile ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda uga fadhiyaan in gacanta lagu soo dhigo 4 nin oo ka dambeeya dilkii xildhibaanka ee lagu dilay degmada Baargaan ee gobolka Bari. marday galeen si fiican bay u hadlayaan laakiin wax guul ay ka gaareen haweenka inta marka laga habo si wanaagsan ayaan dowladda iyo dadka gobolka ee degan degmada Caluula Ahmad Sham on Cable TV Boosaaso.